السلام عليكم. سرت iyo mucjisada harada lafaha ee Hindiya waa meel qodan oo qoto dheer oo ku hoostaala buuraleyda Himalaya oo ah meel baraf uu ka buuxo waxaana ku taala hore ay yaalaan araaga lafaha boqolaal qof oo bani aadam ah kaga boga muuqaalkan oo dhammaystiran. harada Roobkund waxay hoos u qodan tahay 5,029 mitir oo ah 16,500 fiit waana salka hoose ee Tirizu mid ka mid ah buuraha ugu dhaadheer Hindiya ee gobolka Uttarakhand. lafaha haraaga waxay daadsan yihiin hareeraha barafka qaarna gudaha ayay ku jiraan. waxaa markii ugu horeysay hoosteeda tegay nin British ahaa sanadkii 1942 nus qarnigii lasoo dhaafay. saynisyahanno ayaa baaritaan ku sameeyey lafaha halkaa laga helay. hadda haradu waxay soo jiidatay saynisyahanno doonaya in ay wax badan ogaadaan iyo dalxiisayaal, balse in halkaa la booqdo waxay ku xiran tahay xilliga sanadka iyo cimilada sida ay tahay. harada oo lafaha yaalo badankooda ay baraf noqdeen marna way weynaataa marna way yaraataa. keliya marka barafku dhalaalo ayaa la arki karaa lafaha. mararka qaar waxaa la arki karaa meydad weli hilib iyo haragga uusan ka bi'in oo si fiican u yaala. muddadii uu baaritaanka socday waxaa harada laga helay lafaha dad gaaraya 600 ilaa 800 oo qof. sida dalxiiska loo soo jiito maamulka gobolkaas waxay halkan ugu magacdareen harada mucjisada. nus qarnigii lasoo dhaafay waxay saynisyahanadu barteen oo baaritaan ku sameeyeen haraaga waxayna keeneen su-aalo aada u badan. maxay ahaayeen dadkan? maxay halkaa ugu dhinteen? siday u dhinteen? halkay ka yimaadeen? waxaa jirto aragti hore oo lafahan la xiriirinaysa boqor hore oo Hindiya ka talin jiray iyo qoyskiisa iyo shaqaalihiisa oo dhammaantood ku dhintay dabeelo iyo baraf muddo 870 sano ka hor ah. waxaa kaloo jirta aragti sheegaysa in haraagan ay yihiin askar Hindi ah oo isku dayay inay weeraraan Tibet sanadkii 1841 kadibna lasoo jibiyey. in ka badan 70 ka mid ah waxay ku qasbanaadeen inay u baxsadaan dhanka buuraha Himalaya ayna meesha ku dhinteen intii ay soo safrayeen. sidoo kale waxaa jirta fikrad kale oo qabta in halkan ay noqon karto goob lagu aasi jiray dad u dhintay cudurro faafa. deegaanada u dhow waxaa laga garanayaa hees caan ah oo ka hadlaysa buurta Nanda Devi inay samaysay duufaan sida birta u adag oo dishay dadkii isku dayay inay ka gudbaan harada. buurta labaad ee ugu dheer halkaas ee Nanda Devi waxay dadka qaar u arkaan sidii ilaah ay caabudaan. cilmi baarisyo hordhaca waxaa lagu ogaaday in inta badan dadka halkaas ku dhintay ay ahaayeen kuwa dhaadheer oo aan la mid ahayn dadka hadda. badankooda waxay ahaayeen dhexaad u dhexeeya ka 35 sano ilaa 40 sano. caruur kuma jiraan lafaha meesha laga helay. qaarkoodna waxay ahaayeen haween da ahaan waxaana la aaminsan yahay in dhammaantood ay caafimaad qabeen. sidoo kale waxaa la qiyaasaa in lafaha ay yihiin hal koox isla socotay oo ku dhimatay hal musiibo oo ka dhacday halkaa qarnigii 9aad ee miilaadiga. cilmi baarista ugu dambeysay oo muddo 5 sano ah socotay waxaa ka qayb galay 28 aqoon-yahano oo ka kala socotay 16 macaahid waxbarasho oo ku yaala Hindiya, Mareykanka iyo Jarmalka. waxay sheegeen in dhammaan aragtiyada la isla dhexmarayo ay suuragal tahay inaysan run ahayn. saynisyahanadu waxay si hidde kaarboon ahaan ah u baareen 38 meydadka ka mid ah oo laga helay harada oo 15 ka mid ah ay dumar ahaayeen. waxayna ogaadeen in qaarkood ay halkaas ku dhinteen 1200 oo sano ka hor qiyaas ahaan. sidoo kale waxay ogaadeen in meydadka ay yihiin dad kala duwan, geeridoodana ay suuragal tahay inay u kala dhexaysay ilaa 1000. qaarkood waxay arrintan meesha ka saaraysaa inay hal musiibo ku dhinteen. weli ma cadda waxaa ka dhacay harada Roobkund, balse waxaan hadda ognahay in dhimashada dadkan ay xiriir
la lahayn oo aysan hal dhacdo ku wada geeriyoon, balse waa arrin xiise leh in dadka ay kala duwan yihiin hiddo ahaan. hal koox ayaa leh hiddo la mid ah midka dadka koonfurta aasiya ee hadda nool, halka koox kalena ay hiddo ahaan u dhow yihiin dadka hadda ku nool yurub, gaar ahaan jasiiradda kriit ee gariiga. sidoo kale dadka ka yimid koonfurta aasiya uma muuqdaan inay yihiin isku qoomiyad ama qabiil. qaarkood waxay asal ahaan yihiin qoomiyado hadda ku badan dhanka waqooyi ee qaaradda, halka kuwana ay asal u leeyihiin dad hadda ku nool koonfurta. haddaba dadkan kala duwan ma waxay harada u safreen iyagoo koox-kooxa, ma waxaa u kala dhexeeyey muddo boqolaal sano ah? qaarkood ma waxay ku dhinteen hal dhacdo gudaheed? hub, qalab kale ama alaab ganacsi lagama helin goobta. harada kuma taalo waddo ganacsi loo maro. baaritaanka hadda laguma ogaanin in caabuq ama cudur uu sabab u ahaa geerida dadkan. dad cibaado u aaday meesha ama usii maray waa suuragal inay sharaxaan sababta halkaas loogu safreeyey. cilmi baarisyo ayaa muujiyaya in halkaa cibaado loo aadin lana arag dad ugu safray arrimo diin la xiriira wixii ka horeeyey qarnigii 19aad, balse waxaa jira qoraallo macbadyo oo la qoray intii u dhexeysay qarniyadii 8 iyo 10aad oo dhigaya sida suuragalka ah ee halkan loogu aadi jiray cibaado. haddaba saynisyahanada waxay aaminsan yihiin in meydadka qaar ee la helay ay ahaayeen dad badan oo halkaa u tegay cibaado oo si wada jir ah ugu dhintay hal dhacdo. balse sidee dad ka yimid bariga badda mediterranean-ka ugu dhinteen dhulka fog ee buuraha dhaadheer ee hindiya? waxay u muuqataa inaysan dhici karin in dad yurub ka yimid ay safraan ilaa rabkundi si ay ugu qayb galaan cibaado hinduuga u gaar ah. ama suuragal ma tahay in ay yihiin dad hiddo ahaan ka soo jeeday yurub balse halkaa muddo qarniyo ah